meeshaan bal waxaan nooga warbixisa meeshaan aan maanta nimid aan soo booqanay maadaama gobolka Galgaduud aan soo marnay mudug hadda qaybo kamid aan joogno bal niyo meeshaan nooga warbixi meeshaan niyo waa meel aad u qurxoon maadaama indhayntii deegaanada Galmudug aan maraynay sax geedihii aad ugu qurux badnaa dhulka ugu qurxoonaa baan joognaa sax geedka ka dambeeya dheer waa jee oo waa ka saadhirkiisa u jeedid kan geed qurun baa la yiraahdaa midkan waa xagar kan waa beeyo midkan waxa la yiraahdaa dhajin oo malmalka laga guraa dunida loo dhoofiyaaba waa waxyaabaha dadku isku carfiya laga sameeyaa ma sha Allah kaas waxa la yiraahdaa meega waa geedka geedaha ugu adag ma sha Allah kan ku xiga adkaysid oo aad ka u dheer waa bilcil dadku laakiin qaar ay u maleyn karaan inuu yahay qurac ay u maleyn karaan laakiin qurac ma ahan marka deegaankan wax isku jira dul iyo dooxo sax meesha hadda aan joogno waa Iran waa Iranka meeshan waa dhul aad u fiican xoolaha yimaada xitaa galin hore iska dhaafa barqa hore ka dirgaan garanaysaa sababta keenta inuu yaani noqdo qaabkan maxay tahay waxa keenaya qorraxda miyaa waa cimilo u marayo maya kicin baa galay marka cadaad bay bilaawdo ma ahane wax weyn ma ahan sida u jeedo marka dhulkaan laakiin ubax uu eegyaa waa qurux badan yahay ha flower buu eegyahay markii loo jeedo qofkii aan aqoon ubaxyadana soo guran u leeyahay laakiin ubax ma ahan waxaad arkaysaa mid kale oo ka sii qurxoon sida hadda kaamirada indhaha hor qabanaysa kaas wad u jeedaa meesha oo sax horteena marba si baad u arkaysaa marka leemna geedkan waxa la yiraahdaa mareer ha waa geedaha aad geel u jecel yahay sax marka wadankan bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dhulkooda inuu qurxoon yahay qurbo joogta ay soo laabato wadankooda wax ku bartaan sax ay hal abuur ka sameystaan ay dib ugu soo laabtaan ma sha Allah dadka reer miyigaana maxaa ayaan ugu baaqaysaa maadaama balaag ay soo bateen meel walba laga qoday dadka reer miyiga labaan kala talin lahaa labadaas oo ah dhirta in la jaro inay joojiyaan dhulkana in la qodo inay joojiyaan markaas dhulku nacfi buu ku deeqaa laakiin qofka hadduu baragta ka qoto geedka ka soo horbaxana gooyo xaalufin maahan wax kale ka faa'iido mayaan dadku marka mar walba waxa loo baahan yahay inay ogaadaan horta haddaa kan ka guurtid kan kale bariyeed ka guur soo looma baahna marka inuu mar walba ku xisaabtanto dhulkan hadda fiiri geedkan imisa ku jirta dhir geedo badan ba ku jirta mid qalalan mid qoyan waxa way jiidaalka markii la gaaro xooluhu biyo ku cabayaan waa lagu soo bixin karaa laakiin haddii geedka la jaro wax meeshaas ku kaydsamaya ma leh geed kasta u jeedid waxbaa ku jira qoriga qalalan bay shidanayaan waxay sameynayaan oo kale kii qoyan bay jarayaan dhulkii bay qodayaan mar walba waxay noqonaysaa dhulka inuu xaalufo soo looma baahna marka in lagu xisaabtamo maanta iyo berri adduunku iska maanta iyo berri moogta haddaad ku xisaabtay marka maxaa ku soo bixi kara marka bulshada deegaanka deegaanna taasaan uga digayaa qurbo joogtana waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa wadankooda aadka u qurux badan fiiri meeshan wali beerayniyo ku aad ugu qurxoon dhulkaan dhul beereed waaye uu adag yahay dhulkaani biyaha ma laqaaya adoon ma ahan marka mar walba waxay rabtaa maartay qof xirfad u leh oo waxaan way aragnimo inuu wadankan ka shaqeysto anigu doorto laabto doonte man ka deqado taybaaye anigu doorto laabto doonte man ka deqado taybaaye what
baan